sirdoonka dalka Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigeen shabakad argagixisa oo diyaarinaysay weeraro xooggan oo ay ka fuliyaan magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya iyo magaalooyin ka tirsan gobolka Oromada ee dalkaasi. mukhaabaraadka dalka Itoobiya ayaana ku sheegay kooxdani argagixisada inay ka koobnaayeen 40 xubnood isla markaana intooda badan lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo iyadoo sidaasi lagu fashiliyay weeraro ay diyaarinayeen inay ka fuliyaan xarumo muhiim ah oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa iyo magaalooyin kale oo dhaca gobolka Oromiya. sirdoonka Itoobiya ayaana intaa ku daray inay weli ku raad joogaan qolyo kale oo la tuhunsan yahay inay gacan saar la leeyihiin ama ay caawinayeen shabakadaasi argagixisada ahayd. sirdoonka dalka Itoobiya ma carab dhabin magaca kooxda argagixisada ah ee sida gaarka ah ay kaga tirsan yihiin shabakadani gacanta lagu dhigay, hase yeeshee waxay ku sheegeen qoraal ka kooban ee ay soo saareen in ay yihiin argagixisada ka dagaalamayso gobolka, taasoo durbadiiba loo fasirtay inay tahay kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalantay gudaha waddanka Soomaaliya iyo kooxda kale ee Daesh oo iyada qudheedu ku sugan qaybo ka mid ah gobolada Soomaaliya. waxaana kaloo la tilmaamay in inta badan xubnaha la qabtay ay ku sugnaayeen waxaana la sheegay in inta badan xubnaha la qabtay iyo kuwa lagu raad joogaaba ay ku sugan yihiin gobolka Oromada ee dalka Itoobiya. hadalkani ka soo baxay dowladda Itoobiya waxa uu ku soo beegmayaa maalmo uun kadib markii xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigtay kooxad doonayay inay afgambiyaan dowladda, kuwaas oo la qabtay lagana hortagay isku dayga ay abaabulayeen sida ay sheegtay xukuumadda Addis Ababa. markii uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya ku dhaqaaqay tallaabadii xadgudubka ahayd ee uu heshiiska kula galay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi horaantii sanadkani 2024, hoggaanka sare ee kooxda Al-Shabaab ayaa soo saaray hanjabaad culus oo ay ku sheegayaan inay weerari doonaan Itoobiya isla markaana aysan ogolaan doonin inay qaadato qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya. cod soconayay muddo dhowr daqiiqo ah oo uu soo duubay afayeenka kooxda ayuuna ku sheegay in ay dagaal adag la geli doonaan Itoobiya si ay kaga hortagaan damaceeda kadib heshiiskii ay la gashay Muuse Biixi oo dhabaha u xaarayay 20 kiiloomitir oo ka mid ah biyaha badda cas ee Soomaaliya ay Itoobiya ka dhigato saldhig ciidan iyo dekad ay wax kala soo degto mustaqbalka. hay-adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa soo bandhigay sawirada rag la baadi goobayo kuwaas oo la helay muuqaaladooda iyagoo qaraxyo dhigaya goobo ganacsi oo ku yaala suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho. hay-adda nabad sugidda qaranka ee NISA ayaa baahisay sawirada 6 nin oo boorsooyin qaraxyo ah dhigay dukaamo ku yaala suuqa weyn ee Bakaaraha magaalada Muqdisho. raggani ayaa muuqaalkooda laga helay kaamiradaha qarsoon ee CCTV-ga loo yaqaano. qoraalkan oo lagu baahiyay barta X ee horey loo oran jiray Twitter-ka oo ay leedahay NISA ayaa dadka Soomaaliyeed looga dalbaday in qofkii arka raggaasi uu la xiriiro lambaro laga helo hay-adaha ammaanka oo lagu soo bandhigay qoraaladaasi.